muqaadaraadka jaadka balwada ha shiishka hadii marka balwada maqashan oo ogtahay ninkaas wuxuu soo wada xaafadu dhaafi rabaa sabab xaafadu dhaafi rabaa ha dirjiinka xarista abo taxliimo ha ee dafay sokortii cusbada looga soo qaad burwaaqada nimcada dadku wuxuu ahaa dad kalgacayl iyo walaalnimo iyo ka dhaxay u ahaa sax dadkii oo noocaas ah dadka cusbada ka doonan jira magaaladii tuuladii ka imaaday meesha baadiyaha haddana galabkii waxaa la arkay iyo haddana sokor loo soo doontay weelkii waxaa la qeybay waraa anaga baqaar baana horyaal saxdo ya reer magaalka gabdho yar yar oo waxa u joogno beelbeel laano sax ya dadka u yaqaan ibaarag shukulaatada ayaa u joogwanta dadku waxa isku doon jiray way baasanka soo saari jirtay ya عاود ما سالي كري دكتور سالي عاود ما سالي كري هذا كوكو دعديا قف هذا قال كعي سيمري هذا حبر جوج مقاري كرت غير مقاري كرت يا اخي يا حناقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري ميل والبا دنيا نجا داوريسان halkan waa channelka Fatah Media waxaan idin soo gudbinaynaa qaybihii sheekooyinka qayb kamid ah waxaana sheekooyinkan igala qayb qaadan doono saaxiibkay Cabdifataax oo runtii dhinacayga fadhiyo hay Cabdifataax Cabdiraxmaan oo aad baad u mahadsantahay runtii waa mar kale sheekooyinkii qosolka badnay runtii asxaabtu waxaan leenahay subscribe-ka like-ta comment-ina wax soo dhiibtaan fikradihiina aad iyo aad baad u mahadsantihiin Cabdiraxmaan runtii su'aasha waqtiga hore adaa lagu bilaabay hadda laakiin waa in aan lagu bilaabo saan filay si fiican runtii waxaan in hayaa sheeko aad iyo aad u qosol badan haye xiiso badan aad u xiiso badan ha hadda ka hor waxaa dhacday nin ba dadkan waxaa waa isticmaalo muqaadaraadka jaadka balwada ha shiishka hadii marka balwada maqashan oo ogtahay ninkaas wuxuu soo wada waa sheeko aad u qosol badan sax marka waxa yiri cid dirjiinkeeda ayuu soo fadhiistay cidii dirjiinkeeda markuu soo fadhiistay baa cidii ku soo baxeen waxa la dhahay niyahu buuq yaray waa seexan rabnaa iska meesha iskaga qayl cidii gudihi gashay albaabkana nagu soo garaacnay Allah okay hadii markii dambe ninkan soo fadhi u marqaanka ka tireebadii xaafadu dhaafi rabaa sabab xaafadu dhaafi rabaa albaabkii ganjeelka ayuu garaacay waliba si xooli ah cidii waa cidii dheysay albaabkan ugu soo galay dirjiinka ku qeylay waa sax gow maamadii weynada ku soo baxay markii soo baxay ay tiri war adiga ma waalan tahay hanu soo garaacay albaabku maana dhin haye markaas wuxuu yiri maan wax kale albaabku ugu soo garaacay dirjiinka xarista dirjiinka guriga kamid ah xareyso de waxa soo xakeeyaa warqaanka wuxuu yiri wax kale kuma wacele kale dirjiinka xarista والله شيء عجيب واقرتي نيو لكن أنا وحارت الله ياب يقع واي وحسست واجي هره عصبة سكرت صح سليدة ما هي الله درا سما درس كله درا ها دتك واسكو حقاتان سوماليدو هاي أبو تعليمه ها الدفاي سكرتي عصبة لوجا سوقات صح واجس واحد عجيبة روبكو اسكت يجري برواقة نمعة دتك هذا kalgacayl iyo walaalnimo iyo ka dhaxay u ahaa sax waqtigaana la soo gaaro casriga dadku casri u yaqaan casri ma ahan hay markaas dadkii oo noocaas ah dadka cusbada ka doonan jira magaaladii tuuladii ka imaaday meesha baadiyaha hay magaalada la soo galay xariif deriska Allah cusbada ka rabnaa iyo sokor kuwa yaabay dadka waa maxay cusbada waxa naga doonaysaan ma kastoo yaroo cusbada rabnaa sax dadkii reer baadiyaha iyo dadka reer magaalka isfahmi laayeen ilaa hadda arrimaha la yaab kale waa oo ya ilmo yara cusbo loo soo dir maalintii kale cusbo cusbo la siiyo cusbadii ka dhabaatay bishir waa gabagabe cusbaha la siiyo haddana galabkii waxaa la arkay iyo haddana sokor loo soo doontay weelkii waxaa la qeybay waraa anaga baqaar baana horyaal saxdo ya cid reer magaalka gabdho yar yar oo waxa u joogno beelbeel laano sax ya dadka u yaqaan ibaarag shukulaatada ayaa u joogwanta sax
sheeko waa weyn waa sheeko waa weyn waa isgaagaad ay wada odayga reer xamar waa cidda isgaagaad kale wadaan yaa bunkulaal badooba la soo dhaweysto sheekadaas horta sheeko la yaab noqoto runtii aan la yaabay waxa fiican dadka inay isdhex galaan oo ay wax siiyaan oo ay maaragtay dadku is saacidaan oo qofka maaragtay dariska la booqdo qofka walaalkiis qofka kale walaalkiis inuu caawiyo marka runtii asxaabay walaalkay Cabdiraxmaan aad buu u mahadsan yahay sheeko waa iidana marka asxaabay kuma sheekooyin badan soo wadnaa waxyaabaha maaragtay sheekooyinka wax macquulka waa ogtii waayo waaga dugsiga looxa dhigan jirtay oo maaragtay dadku wax isku doon jiray waaga baasanka soo saari jirtay عامد ما سالي كري دكتور سالي عامد ما سالي كري هذا كوكو دعويا لكن تبي جلع ولا اكتبها هذاك باستو بريس دحجلا يا الله عيالكو توش جيرتا الله يا خياري sheekooyinkeeni intaas ay ku dhayihiin khiyaaray commentiga ka soo dhiibta oo lagu dhiirigeliya sheekooyinkeena wixii aan qaladnay noo saxa si comment ah idinka dad ku nahay sheekooyin waxa idin soo wadnaa oo aad iyo aad u xiiso badan runtii oo maaragtay nooc kasta ah oo maaragtay si aan idin madan daalino waa inaad subscribe ka noo saartaan oo aad naga daba geysaan kuwa horteen dhaqaaqay ya qof hadda gaalkacay sii mariyo adoo xamar joog oo ma gaari karti ya khiyaan xanaaqi marka waa sheekooyin kale oo xiiso badan ayaa idin soo wadnaa aad baa u mahadsantihiin